waxaa kamid ah xog buuxda waxaan kaga hayaa Villa Soomaaliya oo gadaal ka riixaysa mooshin xilka looga xayuubanayo madaxweyne Waare ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo duleedka Muqdisho ka celiyay gaari xamuul ah oo ku rarnaa walxaha qarxa xog ku saabsan qorshe la doonayo in la isku soo dhaweeyo madaxweyne Farmaajo iyo Xaaf oo fashilmay dawladda Soomaaliya oo marka lagu cadaadinayo in wada hadal toos ay la gasho madaxweynaha Jubbaland أحمد مدوبي سعيد عبد الله الدني أو مركل كل ما يوم مجال الجروبي وجودك كلهم كعاص عن هلد رزارة قير حلي وحوصار ورقات سؤال بدن الشك كده حبورته هيدا الدولة ده الشباب نوحي شكتين وين رايكو قادن صلق عيدا كبدا أمريكان كا إياه وركي وجودن بيه لحري لا أرماه قلمود إياه ولبا جدا كينيا عين على الشباب وين رايك فوريان كم نقص صاحبنا كحرن channel كنا سبسكرايب لجنبال القناة تابو سيكون صداعان معلومات دي يولبه ورك جارك حال كنا نسوقلنا waxaan ku hormari doonaa xaaladda magaalada caasimadda ah Muqdisho waxa laga dareemayaa amni xumo iyo qalqal dhanka amniga ah ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa saakay duleedka caasimadda waxay ka celin gaari xamuul ah oo saarnaa walxaha qarxa wararka laga helay deegaanka la yiraahdo Tiradisha ee duleedka koonfurta magaalada caasimadda ah Muqdisho waxay sheegeen halkaas laga celiyay gaari lagu shakisan yahay inay saareen walxaha qarxa gaarigan ayaa noociisa waxa uu kuwa weynka xamuulka qaada ee Soomaalida u taqaan dandiyeeshe waxaana la sheegay ciidanku ay hor istaageen inuu gudaha magaalada u soo gudbo wararka waxa inta ay ku darayeen in shaki weyn laga muujinayo in walxaha qarxa ay ku rarayeen gaarigan maadaama uu ka yimid gobolka Shabeellaha Hoose kuna wajahna magaalada Muqdisho ciidankuna ay ka celiyeen halka laga ilaaliyo ammaanka caasimadda ciidamada dawladda ayaa dadka ka agdhow goobtaasi waxay u sheegeen inay ka fogaadaan ayna ka baqdin qabaan qarxiyo waaweyn ay saareen gaarigan saraakiisha ciidanka ammaanka ayaa laga soo xogtay in loo diyaarinayo rag u tababaran baarista walxaha qarxa si loo hubiyo gaarigan iyo qarxiyada saaran 28 bishii December ayaa qarax sidan oo kala oo weyn waxa uu ka dhacay isgoyska Case Control Afgoy waxaana ilaa hadda la xaqiijiyay inay ku dhinteen 100 qof 150 kalena wali xaaladooda la tacaalay kuwaas oo ku jira isbitaalada waaweyn ee caasimadda madaxtooyada Soomaaliya waxaa lagu eedeynayaa in gadaal ay ka riixayso mooshinka xilka loogu qaadayo madaxweyne Waare mooshinkaas oo moodo in maalmihii dambe uu noqday mid si xoogaysan madaxweynaha maamulkaasi Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa maalmihii dambe waxa laga waday mooshin aad u xooggan waxaana mooshinkaasi ka waday xildhibaano badan oo kamid ah baarlamaanka madaxtooyada Soomaaliya ayaa gadaal ka riixaysa mooshinka xilka looga xayuubinayo madaxweynaha maamulkaasi Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare sidaan xogta ku helnay tiro xildhibaano ah ayaa diyaariyay soo jeedinta mooshin kaas oo ku taxalluqa kalsooni kala laabashada madaxweynaha maamulka Hirshabelle oo lagu eedeeyay in gabi ahaanba uu gabay shaqada isla markaana isku koobay talada maamulkaasi sida wararkan helinay sheegeen gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Hirshabelle Sheekh Ismaan Barre Maxamed ayaa la rumaysan yahay inuu gadaal ka riixayo mooshinkan asagoo oo ka shidaal qaadanaya madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sidaan xogta ku helnay magaalada caasimadda Muqdisho waxa ka soconaya shirar gaar ah oo ay leeyihiin xildhibaanada maamulka Hirshabelle iyo xildhibaanada federaalka Soomaaliya laga soo doorto deegaanada Hirshabelle kaas oo diiradda ay ku saarayaan mooshinka xilka qaadista ama eriyada madaxweyne Waare madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa muddooyinkii dambe wajahayay qorshe xilka qaadista asagoo qalqal amni iyo waliba qalqal la xiriiray xilkiisa dareemay Waare ayaana muddooyinkii dambe waxa uu dawada la galay ama uu salligtay halka uu ka soo jeeday magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan halkaas oo la sheegay inuu ka abaabulayo burburinta mooshinkan iyo sida ugu hortagi lahaa sida ilo xogagaal ah ay xogtan nala wadaageen dawladda federaalka Soomaaliya markan waxa lagu cadaadinayaa in wada hadal toos ay la gasho maamulkaasi Jubbaland si halkaasi loogu qabto doorasho mustaqbalka Maxamed Nuur oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo la hadlay warbaahinta madaxa bannaan ayaa waxa uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay tahay inay qaado tallaabo waafaqsan sharciga ku saabsan sidii Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ciqaab uu jihi lahaa iyo in magaalada Kismaayo halkaasi lagu qabto doorasho oo markale Axmed Madoobe uu tartamo siyaasiga Maxamed Nuur ayaa ku baaqay in dawladda federaalka Soomaaliya ay gacanta ku soo dhigto hogaamiyaha maamulkaasi waa hadii uu diido inuu aqbalo
ka qaybgalka doorasho xor iyo xalaal ah oo mar kale lagu qabto Kismaayo. dhinaca kale siyaasiga Maxamuud Nuur waxa uu shaacu ka qaaday in dowladaha shisheeye ay fargelin ku hayaan arrimaha maamulka Jubbaland, wuxuuna intaa ku daray in dowladaha Ethiopia iyo Kenya ay saameyn weyn ku leeyihiin deegaanka Jubbaland, asagoo uu ku eedeeyay gaar ahaan hoggaanka Jubbaland in xiriir toos ah ay la leeyihiin dowladda Kenya. hadalkan ayaa soo baxaya iyada oo weli wax go'aan aan laga gaarin xiriirka dowladda federaalka iyo weliba maamulka Jubbaland ee ku qotoma doorashadii dhacday sanadkii hore 2019, iyadoo weli wax hal ah aan laga gaarin ku saabsan doorashadaasi iyo xalinta doorashada iyo go'aanka laga gaarayba. haddaba dhanka kale isla wararka Axmed Madoobe intaanan ka bixin ee magaalada Garowe caasimadda Puntland, halkaasi waxa ku kulmi doona Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdilaahi Dani. madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maalinta berri ah ku wajahan magaalada Garowe ee caasimadda gobolka Nugaal, sida channelkeena ay u xaqiijiyeen ila lagu kalsoonaan karo. wararka waxay sheegeen Axmed Madoobe kulan gaar ah oo la qaadan doono madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani. kulankan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in labada madaxweyne ay kaga hadli doonaan doorashada 2020 ilaa 2021 iyo hanaanka kala guurka ee dalka uu marayo. sidoo kale waxaa kulankan gaarka ah la filayaa in lagu soo hadal qaaday xiriirka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland. tan iyo markii la doortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo Dani waxa ay noqdeen labada madaxweyne ee kaliya ee aan garab istaagin dowladda ay ka soo horjeesta, laakiin isku garab iyo isku mowqif iyo isku taageero ah. Puntland iyo Jubbaland ayaa sidoo kale waxay ka hor yimid qorshaha dowladda dhexe ee ku wajahaysa maamulada dalka ka jira, gaar ahaan arrinta la xiriirta Galmudug, waxaana xumaanaya ama toos u xumaaday xiriirka saaxiibtinimo ee xukuumadda iyo labadaasi maamul. lama oga halka ay saldhiga doonto khilaafka weli kala dhexeeya dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah labada maamul ee waa maamulada Puntland iyo Jubbaland. wararka kale waxaa qayb ka wararkii ugu dambeeyay dadaalo lagu dhexdhexaadinayo Villa Soomaaliya iyo madaxweyne Xaaf ayaa u muuqda markan mid guul dareysanaya, iyadoo Xaaf u muuqdo inuu ka soo horjeesto qorshaha dowladda kadib markii madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Gelle Xaaf uu Khamiistii si buuxda kaga hor yimid qorshaha dowladda ee ka wado Galmudug, asagoo magacaabay guddi cusub oo doorasho ah kuwaasoo qaban doona doorasho si loo qaboojiyo xiisadaha siyaasadeed. ayaa waxaa la sheegay inay socdeen kulamo waawaan arrintaasi looga hadlayo, hase yeeshee waxaa muuqata in guud ahaanba kulamadaasi ay noqdeen mid guuldareysta. xilliga dhismaha ee khilaafkan wiiqaya ee Galmudug ayaa waxaa la sheegay inuu hareeyay dhammaanba mustaqbalka maamulkaasi, waxaana socdo qorshe badan oo la doonayay in Villa Soomaaliya iyo madaxweyne Xaaf ay ku wada hadlaan, laakiin qorshahaas ayaa u muuqda mid la cisoobay. ila wareedda lagu kalsoonaan karo waxa ay sheegay madaxweyne Xaaf oo dhankiisa uu aqbali kari laayahay ama uu diiday inuu aqbalo in toos wada hadal la yeesho madaxtooyada si loo helo Galmudug loo dhan yahay oo tanaasul siyaasadeed uu sameeyo. Xaaf ayaa dhinaca kale waxa uu diiday wax walba oo ku saabsan dhexdhexaadinta asagii dowladda, wuxuuna ku adkaystay mowqifkiisa la xiriirta in loo madax banaaneeyo dhismaha Galmudug una magacaabay guddi doorasho. Villa Soomaaliya waxay isku dayaysaa sidii ay cadaadis u saari lahayd kulamada Xaaf uu ka wado magaalada Gaalkacyo koonfurteeda iyo weliba sidii ay u fashilin lahayd 25 shirka beesha uu ku baaqay Xaaf in lagu qabto Gaalkacyo. warqad ka soo baxday ku-xigeenka hantidhowraha guud ee qaranka ahna waa Cabdijamaal Ismaaciil Maxamed ayaa si ku meel gaar ah waxa loo xanibay xisaabaadka Galmudug ay kulliina koonada dowladda. waxaa la ogaaday in ay la bixireen lacago badan oo loogu talagalay shaqaalaha rayidka ee ciidanka, lacagahaas oo koonada ku jira kaasoo doonaya in Axmed Ducaale Gelle Xaaf uu ku kharash gareeyo qorshaha doorashada ee uu doonayo inuu ku qabto koonfurta magaalada Gaalkacyo. arrintan ayaa waxa ay soo shaabaxay saacad kadib markii Xaaf uu magacaabay guddi doorasho kana soo horjeestay qorshaha wasaaradda arrimaha gudaha ay ka wado magaalada Dhuusamareeb. xaaladda ayaa u muuqatay mid aad u cakiran, walaac badan ayaa laga muujinayaa dhismaha maamulka Galmudug oo ay dowladda Dhuusamareeb ka wado. wixii waraha ku soo kordhana saaxiibayaal wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan. رئيسها الصومالي حسن علي قيري حالي waxa uu soo diray warqad su'aal iyo shaki badan ka dhax abuurtay hay'adaha dawladda. warqad xalay ka soo baxday xafiiska ra'iisul Soomaaliya ayaa waxa lagu magacaabay guddiga qabanqaabada xuska sanad guurada 6aad ee maalmaha xorriyadda Soomaaliya 26 Juun iyo 1 July oo abuurtay su'aalo iyo jahwareer badan ku saabsan xilliga warqadda ay soo baxday.
inta badan sida dowladda Soomaaliya ama madaxtooyada ayaa waxaa gudiyada qabanqaabada munaasabada ay magacaabi jireen marka la gaaro bisha June hase yeeshee guddiga kheyraha xalay u magacaabay ayaa ku soo aadaysa waxay soo magacaabeen 6 bil iyadoo ay ka dhimantahay maalmaha xurriyadda warqadan ayaa sidoo kale waxaa looga digayaa dadka qaar in ay ku qeexaan warqad qaldan halka la sheegay in warqad sax ah oo ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha mid ka mid ah saraakiisha xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in sababta guddigan xilligan hore loo magacaabay ay ka mid tahay in la doonayo in xuska si heer sare loo qabto sida warqada lagu sheegay xuska ayaa sanadkan ay kulansan doona 2 munaasabadood oo muhiim ah kuwaas oo kala ah sanad guurida 6aad iyo waliba iyo sanad guurida 20aad ee dib u aaska dowladnimada Soomaaliya oo lagu dhisay carta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya walaalahayna Djibouti wasaaradda warfaafinta ayaa loo magacaabay in guddiga ay u xil saarto oo ay soo magacaabdo waxaana hogaanka waa guddigan oo wasaaraha magacaabay waxa hogaan looga dhigay wasiirka warfaafinta waxa ku jira maaliyadda gaashaaniga amniga dhalinyarada waxbarashada cadaaladda iyo gudoomiyaha gobolka waxaana gudoomiye u ah wasiir maareeye dhamaantood waxay ka shaqeyn doonaan qorshaha maalmaha xurriyadda guddigan ayaa howsha qaban doona waxa ay bilaaban doontaa xuska maalmaha xurriyadda shaqadooduna ay ku eg tahay isla maalmaha xurriyadda marka ay idlaato warbixintan ayaa saaxiib yaal ugu dambeysay guud ahaan wararka aad ka daawanaysan janaalkana badweyn tubena saaxiib yaal wanaagsan warka kan xiga intaan ku kulmi doono waa baxdi badweyn oo idin leh nabadgelyo